صاحب الهلكن waa Cable TV ku soo dhawaada akhbaaraadkii daafaha dunida aan idinka haynay qodobada ugu waaweyn ee ku daawan doontiina waxa kamid ah dagaalyahano weerar ku qaaday xarun ay injineero Shiinaysa ku lahaayeen tuulada Shimbirey oo u jirta 60 kiiloomitir magaalada Gaarisa gabaraha Gaarisa oo wajahaya caqabado la xiriira lacag gaaraysa 1.8 bilyan oo la ogeyn meel ay martay iyo welibana ragii weerarka magaalada caasimadda ee Nairobi ku qaaday oo doonaya in ay weeraro kale ku qaadaan magaalada Mombasa oo ay ka fashilmeen qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ayaad ku daawan doontiin warkeena caawiya caalamka markale saaxiibayaal isu soo dhaqad wacana wanaagsan ku soo dhawaada imikana warkii oo faahfaahsan dagaalyahano la tuumayay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalay weerar ku qaaday xarun injineero Shiinaysa oo dhisa wadada u dhaxaysa Wajeer iyo magaalada Gaarisa ay ku leeyihiin tuulada Shimbirey oo 60 kiiloomitir u jirta magaalada Gaarisa warbixin amuurahaas ku saabsan waxa tuulada Shimbirey inooga soo diray wariyahayaga Cabdi Faarax dablay lagu tuhmayo in ay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xarun ay ka howlgalaan shaqaale u dhashay wadanka Shiinaha kuwa oo mashaariic ka fulinaya degmada Shimbirey ee wadada weyn ee isu xirta magaalada Gaarisa iyo Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya tuulada Shimbirey ayaa 60 kiiloomitir u jirta magaalada Gaarisa waxaana xarunta la weeraray ka howlgalayay 45 shaqaale oo 25 kamid ah ay yihiin kuwa u dhashay dalka Shiinaha ilaa haatan waxaa la xaqiijiyay inay 4 qof uu dhaawac fudud soo gaaray kuwaasi oo lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada Gaarisa iyadoo shaqaalaha Shiinaysku wax dhib ah soo gaarin tulikuwa hapa leo asubuhi mapema waliojeruhiwa kwa sasa ambayo tumeweza kudhibitisha ni bwana moja na mkewe. Yale ingine ambayo ilitendeka ni kwamba kulikuwa na some few minor injuries ambayo tumeweza kuwapatia first aid this morning. Tumeweza jaribu kuconfirm ya kwamba wafanyakazi waliokuwa hapa walikuwa ni wafanyakazi 45 na wote imethibitishwa wako katika kambi. Kwa sasa hakuna no one is missing. qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgaliyay xarunta ayaa sheegay in ay ku soo baraarugeen dhawaqa rasaasta iyada oo qaar ka mid ah ay ishoodu qabatay rag afka u duuban yahay xilligaasi oo ay xaqiiqsadeen in la soo weeraray nikakimbia bio nikatokea kwa ile waya ya gate ambayo ilikuwa tumepambana kutumebomoa. Sasa mimi ili niokoe maisha yangu wakati niliingia pale kwa mtaro nilijaribu kukimbia nikasikia ni kama hata moyo wangu ni maji hata siwezi kuongea chochote. So nilijaribu yoyote ya kujiokoa maishani mwangu. Nikajaribu kuingia pale kwa mtaro, kufuka kwa mtaro upande mwingine nikaona watu kama 6 hivi wamejifunika kichwa hata huwezi waelewa ni kina nani. Mimi nikarudisha tena kwa mtaro. Sasa hili niokoe maisha yangu. Na kutoka hapo mimi niliposikia bunduki zimeanza kulia, mimi nilitoroka na hata saa hiyo asubuhi ndio nimekuja nimelala kwa karabati. taliyaha ciidamada bilayska ee deegaanka Gaarisa ayaa ka warbixiyay geestiisa qaabka ay dagaalyahanadu u soo qaadeen weerarka iyo sida ciidamada halka ilaalada ka hayay ay dablayda isaga caabiyeen. Yesterday at around 8 p.m. our officers who are manning this camp were on their course of their duties were attacked by around 8 gunmen who we do believe were criminals, and also there is an element that they were criminals of Al-Shabaab nature. When they came to the camp, they found that our officers were alert. They started by shooting. They engaged our officers also repulsed them thereafter. On the side of casualties, no officer was injured, only that there is a watchman and his wife who got some slight injuries. They have been taken to hospital. dhacdadan ayaa imaanaysa maalmo oo kadib markii magaalada caasimadda ee Nairobi ee dalkani Kenya lagu dilay 21 qof weerarkaas oo mas'uuliyadiisu sheegatay kooxda Al-Shabaab ee fadhigoodu yahay dalka Soomaaliya. gabanaha Gaarisa Cali Buno Qoran ayaa caqabada wajahaya kadib markay soo baxeen
baadhitaano la sameeyey in lacag gaadhaysa 1.8 bilyan oo shilinka dalka ah aan la ogeyn meel ay ku baxeen. lacagtaasi 1.8 bilyan ahayd ayaa loogu talagalay mashaariicda horumarinta deegaanka. waxaa la leeyahay 1 shilin ah muuna ku bixin mashaariic horumarineed oo kamid ah lacagta ah 1.8 bilyan. kauntiyo fara badan oo dalka ah ayaa lala xiriirinayaa musuq kadib markii lacaga fara badan oo loo qoondeeyay mashaariicda horumarinta ee deegaanada la leeyahay siyaabo kale ayay u isticmaaleen oo lacagahaasi ma jira wax ku baxay mashaariicdii horumarinta. dadka deegaanka ayaa siyaabo kala duwan arrintaasi u arkay. afkaaro kala duwan ayay baraha bulshada ku dhiibanayaan ayagoo qaar fara badani oo ismaamulka Gaarisa jooga ay leeyihiin macquul gal ma ahaan in aan wax mashaariic ismaamulka Gaarisa laga fulinin maadaama mashaariic fara badan deegaanka laga fuliyay, halka kuwa kalena ay leeyihiin maciishadii ayaa ciriiri gashay. taasina waxay ka maqraati furaysaa dakhliga faraha badan in la lunsaday. waa sida ay dad fara badan qabaan. Ismaan Afmaroor oo kamid ah nabadoonnada ismaamulka Gaarisa oo ah nabadoonka degmada Dadaab ayaa dadka deegaanada ismaamulka Gaarisa ugu baaqay in xilligan oo la wajahayo xilli adag iyo waliba caqabado ka imanaya dagaalyahanada Al-Shabaab oo weeraro darandoori ku qaadaya dalka in dad lala shaqeeyo dawladda si akhbaaraadka si degdeg ah loogu helo. wuxuuna dadka deegaanka dhamaantood ugu baaqay in ay la shaqeeyaan dawladda isla markaasna ay ka shaqeeyaan nabadda deegaanka iyo xasiloonida. marka waxaan dhiiri gelini dadka reer Kenya ah inay geesinimo muujiyaan. annaga Al-Shabaab waan ka adkaanaynaa, wayna guul dareysanayaan, guushana annagayna raaci doontaa insha Allah. annagana midkoo aan ahaano dadka shacbiga ee waxaan ka baryi dawladda iyo ciidamada qalabka sido inay garab istaagaan. sababta dawlad haddaad maqasho waa ninka wadanka leh, ninka xun oo skuridka ama nabadgelyada wadanka wax u dhimahayo, ninkii bari ka suumo wax u dhimo ama Bombaaso wax u dhimo haddana bari dambe aduu wax ku dhimi. haddaad moodayso Kenya inay kala jecel yihiin oo kana Soomaaliya kana Kukuye kana Jalwe ay leeyihiin, waxay la dagaalamahayaan dadka wadanka degan oo dhan bay la dagaal. annagana dadkii baan ka mid ah. marka waxaan dadka Kenya dhamaantooda ka baryi waa in dawladda ciidamada nabadgelyada la garab istaago, nimankaasna aan la qarinin, aan laga cabsanin oo fuleynimo haddaad raboodkooda sheegtay ama hadhow ku sheegaan. hadii waligiiba waxa lagu ogyahay ninka fuleyga uu guul dareystaa. si guud dadka Soomaalida ee daafaha dalka ku nool ayaa cadho ka muujiyay weerarkii ay dagaalyahanadii ku qaadeen hotelka Duzi 2 ee magaalada Nairobi, kaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan oo Kenyaan ah iyo walibana dad kale oo wadanka ku sugnaa oo ajaanib ah. gibiyahan badawadayaal warkeena caaw waxaan ku lafagurahaynaa wararka la xiriira Al-Shabaab iyo weerarada ay ku qaadayaan dalka. maalintii ay caasimada dalka hotelka ku yaala Duzi 2 ay ku qaadayeen dagaalyahanada Al-Shabaab, weerarka ayaa sidaas la mid ah waxay maaganayeen inay weerar ku qaadaan magaalo xeebeed ee Mombasa, halkaasi oo ay ciidamada ammaanka ay ka war heleen. laanta sirdoonkuna ay fashilisay weerarkaasi kadib markii la xiray xiriiryadii ay ku wada xiriiriyeen ay kala firxadeen. waxa ay doonayeen inay weeraro ka fulayaan magaalada Mombasa ka hor intii aysan fulanin weerarkii lagu qaaday magaalada Nairobi. laamaha amniga ayaa shaaca ka qaaday in ay xubno ka tirsan Al-Shabaab ku ay kireysteen hotel ku yaala Mombasa, isla markaasna ay qorsheynayeen inay weerar qaadaan, laakiin ay ogaadeen in ciidanka booliska ay ka warheleen, waxaana ay ku kala firxadeen halkaasi. kooxdan wax fulinaysay ayaa rabtay in ay isku mar qaraxyadu ka dhacaan magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi, balse ay ku guul dareysteen. arrintani sababo la xiriira laamaha amniga iyo sirdoonka dalka oo hawada ka saaray isgaarsiintii iyada oo la xiray dhammaan wadooyinka ay u mari lahaayeen magaalada Mombasa. kooxda ayaa intaa kadib waxaa ku dhacay kala carar. sidoo kale kooxda ayaa la sheegay in ay hub ka soo gudbisteen Kainta, Boniface iyo dhanka Malindi. dawladda ayaa soo bandhigtay shakhsiyaad ay la xiriirinayso inay ku lug leeyihiin falkii ka dhacay caasimada dalka ee Nairobi, iyadoo uga digtay dadka dalka inay ka digtoonaadaan raggaasi. waxaana lagu soo bandhigay TV-yada dalka
raggaasi sawiraantooda iyadoo lagu baaqay in la soo wargeliyo dowladda goob walba lagu arko intaas ayaan kusoo koobaynaa daawadayaal akhbaaraadkeena caaweed kala socoteen Cable TV warka waxaa idin la socodsiinayay anigoo Aashim Maxamuud Baraar dhammaantiin iyadoo isku duuban waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo